magaala madaxda gobolka Sool ee Laascaanood ayaa maalmihii ugu dambeeyay waxaa ka dhacay dilal iyadoo qofkii ugu dambeeyay shalay subaxii meedkiisa laga helay magaalada Laascaanood. dhacdadan ayuu ka hadlay wasiirka wasaaradda warfaafinta Soomaaliland Saleebaan Cali Koore waxaanu sheegay in Laascaanood ay ku sugan yihiin maalmihii ugu dambeeyay shan wasiir iyo taliyayaasha ciidamada Soomaaliland oo dhammaantood ka howlan sidii wax looga qaban lahaa amniga magaalada Laascaanood. waana kan wasiir Koore oo arrimahaas ka hadlaya. runtii soo noqnoqotay dawlad ahaan iyo xukuumad ahaanna kulley tallaabo u baahan. maantana shan wasiir iyo labadii janan ee ciidamaduba way joogaan. arrimahaasay u yimaadeen oo ugu mudan iyo saraakiil badan oo noocyo badan oo ciidamada ka tirsan. marka waxay la tahay waa la wada tashi iyo qaab arrimaha looga tashanaya ayaa jiri doona waqtiga ay soo baxdo go'aamadu iyo qaabka loo maamulayo iyo qaabka loo wajahayo ayaynu go'aan talaka iyo hadalku iman doonaa. laakiin hadda waxaa lagu jiraa waqti diyaargarow ah. habeenadii ugu dambeysay dad dhowra lagu dilay way cadda, laakiin xukuumaddu waxay u diyaargaroobaysaa sida arrimaha wax looga qaban lahaa. waxaad maaragtay indhihiina macallinidiina hadday janan nabad sugi tahay iyo hadday kii bilis tahay iyo kii gaash taliya ciidan tahay iyo haddii ay wasiir tahayba maanta waa loo jooga. marka aad iyo aad baanu ugu hub qaadanaynaa inaan arrintaasi sidii looga hortegi lahaa.